doomiyaha degmada Lixda ka jiro halkaas ka hadlaya waxa kamid ah daladiisi waxaan maanta isku nimi inuu halkan ka muujino taageerada la garab taageeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland khudbadii dheereed uu ka akhriyay Djibouti aadna waan taageersanahay soo dhaweyntiisana waxaan sameynaa insha Allah si heer qaran ah waa diyaar u nahay dhanka qaar kamid ah dadka xaafadaasi oo arintaas ka hadlaya waxay yiraahdeen madaxweynuhu wuxuu ka hadlay 100 arimood ma ahayn khudbad kula joogtamine jumciyada qurumaha ka dhaxaysay laga hadli jiro kale khudbadiisu waanu ku taageersanay hadii xoog iyo iskarab taag iyo si kastaba tahayba madaxweynaha oo kula raacsanay waanu isu garab taagina waxayna halkan ku hambalyeynaa in madaxweynuhu uu arin adag oo halkaasi uu ka gaaray oo qarannimadeena uu ka istaagay iyo inaanu aynu muujino inaynu ka mideysanahay taageerida iyo isku duubnida madaxweyne garab iyo gaashaan baanu kugu haynaa adiga oo maanta guul iyo gobonimo kala soo hoyday dawladda taagta yar ee Soomaaliya waxaan u sheegaynaa Soomaaliya annagu waxaanu nahay dawlad jirta haddii aan la aqoonsana dad iyagu is aqoonsaday ayaanu nahay waxaan ka halkan ka hambalyeynaa madaxweynaha iyaga Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aan ku taageersanahay khudbadiisii uu ka jeediyay shirkii wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aad iyo aad baan u garab taaganahay waana dhinac joognaa qodana waxaan leenahay waydu kala hadhnayee sheegeena ka hadhan annagoo ku hadlayna magaca gudida xaafadda 26 Juun waxa aan taageeraynaa khudbadii qiimaha badnayd ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay shirkii lagu wada hadlayay ee Djibouti Soomaaliya iyo Somaliland waanu taageersanahay khudbadda qaran ee madaxweynuhu uu ka jeediyay shirka waxaan madaxweynaha u soo dhaweynaa maalinta salaasada uu imanayo hadii Ilaahay raali ka noqdo si heer qaran oo hore iyo dubtoona loo maqal horta waxaan idin sheegayaa anigu madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi isku ciidan baaban ahay waa ninka quraan waa aad iyo aad baan ugu kalsoonahay oo ugu seexanaya inuu maanta Soomaaliland isagu matalo oo halka